kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta 406 ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doonno dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo marxaladaha ay soo martay. mahadsaned Faisa. Sanad kasta bisha Sebteembar waxaa adduunka laga xusaa maalinta caalamiga ah ee dimuqraadiyadda. Munaasabadan ayaa lagu xasuustaa muhiimadda ay leeyihiin tiirarka dimuqraadiyadda udubdhexaadka u ah sida xorriyadda hadalka, xorriyadda madaniga ah, sarreynta sharciga, ilaalinta xuquuqda aadanaha, hirgelinta hay-ado dowladeed oo daah furan iyo hannaan doorasho oo xor ah, macquul ah oo cadaalad ah. Soomaaliya ayaa soo martay sannado dimuqraadi ah sannadihii ugu horreeyey ee xorriyaddeeda ilaa laga soo gaaray afgembigii militari ee sannadkii 1969kii. Ha yeeshee, tan iyo sannadkii 2000 markaas oo dib loo yegleelay dowladnimada cusub ee Soomaaliya, wuxuu dalku ku dhaqmayey hannaanka 4.5 iyadoo madaxdii kala duwaneyd ay si nabada xilka ula kala wareegayeen. Inkastoo Soomaaliya ay samaysay horumar la taaban karo, haddana weli kuma guulaysan inay dalka ka hirgeliso hannaan dimuqraadi ah oo muwaadiniinta u saamaxaya inay doortaan kuwa iyaga xukumaya, taas oo ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee dimuqraadiyadda. Marka laga hadlayo ku dhaqanka dimuqraadiyadda, ayaa waxaa sidoo kale muhiim ah ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo matalaadda bulshooyinka laga tirada badan yahay iyo xaqiijinta nidaam loo dhan yahay oo wadar oggol ah. Haddaba dhegaystayaal, si aan wax badan uga ogaano xaaladda dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo dadaalada socda ayaa waxaan wareysi la yeelanay Derek Freitas oo ah agaasimaha kooxda mideysan ee taageerada doorashada UNSUM, wuxuuna ugu horreyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan astaamaha dimuqraadiyadda Soomaaliya iyadoo maanka lagu hayo doorashooyinka soo socda. I would say that in my view, some of the key features of Somalia's progress towards democracy should ideally include aniga waxay ila tahay astaamaha horumarka muujinaya ee ay tahay inay xaqiijiso dimuqraadiyadda Soomaaliya. Waxaa ka mid ah xushmaynta xuquuqda siyaasadeed, kuwa dhaqaale iyo kuwa bulsho ee muwaadiniinta Soomaaliyeed, iyo sidoo kale xorriyadaha aasaasiga ah ee muwaadiniinta. Waxaa kale oo ka mid ah in la xoojiyo abuurista bulsho rayida oo madax bannaan iyo sidoo kale xoojinta hay-adaha dowladda ee kala duwan, yaraynta colaadaha hubaysan iyo kobcinta amniga, xoojinta iskaashiga gobolka, hagaajinta xuquuqda aadanaha iyo horumar laga sameeyo ujeedooyinka horumarka waara. Kuwani waa qaar ka mid a ujeedooyinka guud ee Soomaaliya ay doonayso inay xaqiijiso, inkastoo jiraan caqabado badan. Dhanka doorashada haddii la eego, waxaa muhiim ah helitaanka heshiis la isku raacsan yahay oo ku saabsan qaab doorasho oo la hirgelin karo oo oggolaanaya ka qaybgal ballaaran oo siyaasadeed iyo in la kobciyo xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhisidda hay-ad madax bannaan oo ka shaqaysa maaraynta doorashada. Waxaa sidoo kale muhiim ah abuurista jawi siyaasadeed oo loo dhan yahay oo habboon oo saamaxaya in la galo wada tashiyo wax ku ool ah, islamarkaana lagu soo afmeero khilaafaadka iyo ugu dambeyn xaqiijinta ugu yaraan 30% matalaadda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. To ensure the 30% minimum representation in Parliament and in state institutions, because this quota is really, I think, important for Somalia's future. dhowaan madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku celiyey siday uga go'an tahay hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Marka maxay tahay sababta tani muhiimka ugu tahay hannaanka dimuqraadiyiinta Soomaaliya? Well, I think we should first clarify that when we say one person, one vote, I mean, and it's widely used in Somalia. Waxaa muhiim ah in la caddeeyo in ereyga qof iyo cod uu yahay erey Soomaaliya si aad looga adeegsado oo macnihiisu yahay in qof kasta oo muwaadin ah oo sharcigu u oggolaanayo codkiisa inuu bixiyo uu sidaas samayn karo. Farsamo ahaan waa qaab doorasho halkii ay ka ahaan lahayd nidaam doorasho. Nidaam doorasho waa hannaan codka codbixiyayaasha loogu bedelo kuraas ay ku fariistaan wakiillo la doortay. Soomaaliya waxay weli ku jirtaa hannaanka ay ku xulan lahayd nidaamkeeda doorasho, kaas oo lagu faahfaahin doono xeerka doorashada. Mid ka mid a sifooyinka nidaamka hal cod iyo hal qof waa ka qaybgalka hannaanka doorashada iyo doorashada wakiiladooda inta ugu badan ee suuragal ah ee muwaadiniin ah ee xaq u leh inay codkooda bixiyaan iyagoo maraya doorasho toos ah. Sannadihii ugu dambeeyey doorashooyinkii federaalka waxaa ka jiray ka qaybgal soo kordhay inkastoo uu ahaa mid xadidan. Hannaanka halka qof iyo halka cod ma ahan inuu noqdo oo keliya mid ku saabsan ka qaybgalka ballaaran, laakiin waa inuu noqdo mid loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan kooxaha haweenka, dhallinyarada, dadka baahiyaha gaarka qaba, bulshooyinka laga tirada badan yahay iyo kooxaha la duudsiiyo xuquuqdooda si ay matalaad cadaalada uga helaan hay-adaha la doortay ee dalka oo dhan.
hannaanka hal qof iyo hal cod wuxuu saamaxayaa inay abuurmaan islamarkaana ay shaqeeyaan xisbiyada siyaasadda kuwaasoo ay xubno ka yihiin dad kala duwan. tani waxay ku cusub tahay Soomaaliya, laakiin waxay u tahay fursad horseedi karta wadajir bulsho. dhab ahaantii waxaa jira caqabado badan oo ku gudban doorashada hal qof iyo hal cod, laakiin ma ahan midaan suuragal ahayn sida ay muujiyeen doorashooyinkii golaha deegaanka ee dhowaan ka dhacay Puntland. Recent district council elections that were conducted in Puntland, as an example. ugu dambeyn, sidee ayay qaramada midoobay u taageertaa dadaalada Soomaaliya si ay muwaadiniinteeda ugu dhisto dal dimuqraadi ah oo ay u siman yihiin muwaadiniintiisu? Our main effort is to provide technical and financial support to Somalia's election management body to organize elections. haddii la eego kooxda midaysan ee doorashada, dadaalkeenna ugu weyn waa inaan taageero farsamo iyo mid maaliyadeed siino hay-adaha maamulka doorashada Soomaaliya si ay u abaabulaan doorashooyinka. waxaan sidoo kale taageero farsamo siinaa wasaaradaha dowladda, baarlamaanka iyo sidoo kale bulshada rayidka ah. bilihii lasoo dhaafay waxaan bixinaynay talooyin farsamo oo ku saabsan qabyo qoraalka sharciyada doorashada iyo qabashada aqoon isweydaarsiyo bulshada rayidka ah oo ku saabsan hababka doorashada iyo tallaabooyinka lagu kordhinayo ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka iyo matalaadda. Like electoral systems and measures to increase women's political participation and representation. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa Derek Freitas oo ah agaasimaha kooxda midaysan ee taageerada doorashada ee UNSUM oo marti noogu ahaa barnaamijka Tubta Nabadda. welina dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka Tubta Nabadda qaybtiisa 406. markana aan u gudubno wareysi aan la yeelanay Maxamed Maxamuud, isku duwaha siyaasadda loo dhan yahay ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. wuxuuna ugu horeyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan isbedelada ay soo martay dimuqraadiyadda Soomaaliya. marka aan fiirino marxaladihii taariikheed ay soo mareen geedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya, waxaan u qaybin karnaa ilaa dhowr qaybood. waxaan kasoo bilaabi karnaa marxaladii gumaysiga. waxaa ku xigay marxalad dimuqraadiyad ah ayaa dalka ka hana qaaday markii dalka xorriyadda uu qaatay, iyadoo doorashadii koowaad ay dhacday xorriyaddii ka hor 1959. waxaa xigay mid maaragtay ayadana afti dastuuro la qaaday 61dii 64tii doorasho ayaa ku xigtay, mid kale ku xigto dhacday 67dii iyo 69kii. marka marxaladaas 1959 ilaa 69kii 10kaas sano ugu horreysay waxay ahayd marxaladii dalka maaragtay dimuqraadiyadda uu ku jiray. kadib inqilaabkii military ayaa dhacay oo xukun military ayuu dalka galay 1969 ilaa 91dii. taasoo ayada naftigeeda afti dastuur iyo doorasho intaba ay dhaceen 79kii, laakiin hal xisbi ah. 84tiina waxaa dhacay iyo 86dii mid madaxweyne iyo mid xisbiga loo codeeyey xisbigii hanti wadaagga. marka burburkii kadib dalku sidaa la socoto wuxuu maaragtay ku jiray dib u kabasho iyo dowlad dhis, marxalad dheer oo nabad dhisa iyo dowlad dhisa. marka marxaladaas ayada naftigeedu maaragtay waxaa jiray isku day Soomaalidu ay ku hiigsanaysay in maaragtay geedi socodkaas dimuqraadiyadda dib loo soo nooleeyo. 2000 doorasho dhacday, waxay ka dhacday Djibouti. 2004 waxaa doorasho iyaduna ay ka dhacday dalka Kenya. 2009kiina waxay ka dhacday dalka Djibouti mar kale. dibadda ay ka dhaceysay oo dalka dibaddiisa ka dhaceysay, laakiin 2012kii waxaa maaragtay markii koowaad dalka loo soo rogayihiisa oo Muqdisho ka dhacday doorashadii golaha baarlamaanka oo ay soo xuleen odayaasha ayaa waxay doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda. wixii ka dambeeyna dalka waxaa ka dhacay 2 doorasho oo kale. sida la socoto marka 2daas doorasho oo kaleeto dalka markii ku meel gaarku uu ka baxay kadib waxa ay u kala qaybsanayeen kuwa dadban ayay ahaayeen, laakiin waxaa codeynayay ergadaasoo tii koowaad oo dhacday 2016kii ay ahayd si loo soo doorto xildhibaanka 51. tii dhacday 2021kiina waxay ahayd 101 qof. sida aad la socoto doorashooyinkaas dhammaantoodba waxa ay horta experiencegii koowaad doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa, iyadoo dalku uu lahaa dastuur damaanad qaadayo xorriyado badan. sidoo kaleetana
lagu tilmaami jiray doorashooyinka xilligaas dhaco inay ahaayeen kuwo dimuqraadi ayaa horta waxay keeneen in dhammaan dowladihii burburkii kadib soo bilowday laga soo bilaabo tii carta ilaa maanta mar walba ay muhiimad u lahayd mudnaanta koowaadna ay siinayeen dalka inay ka dhacdo doorasho dimuqraadi ah. Waxaa kaloo xusid mudan ayadana si burbur kale looga fogaado oo Soomaalidu waxayba ku aanaysaa burburkii dalka in nidaamkii dictatorshipka iyo doorashadii oo meesha laga saaray inuu maaragta u ahaa asbaabaha ugu waaweyn. Si taas looga fogaadana waxaa dhacaysa dhammaan doorashooyinkii burburkii dalka ka dhacay in cid kasta oo markaas xukunka kusoo baxda si nabada ay ugu wareejinaysay ciddii maaragtay kursiga ku fadhisay ay si nabada ugu wareejinaysay cid kasta oo loo doorto jagada maaragtay madaxweynaha. maxamed, wadahadallada siyaasadeed iyo dib u heshiisiintu waxay muhiim u yihiin hannaanka dimuqraadiyiinta Soomaaliya. Haddaba, iyadoo arrintan maanka lagu hayo, waa maxay kaalinta ay qaadan karto doorasho xor ah, macquul ah oo cadaalad ah? Sida aad la socoto doorasho lagu kalsoonaan karo xalaal ah, xor ah oo loo dhan yahay waxay aasaas u tahay geedi socodka dimuqraadiyiinta Soomaaliya. Maxaa yeelay haddii aan Soomaalidu aysan qabanin doorasho ma dhici doonto in dalku uu noqdo nidaamkiisa xukunka mid dimuqraadi ah. Sidoo kaleetana waxay gacan ka geysan kartaa kobcinta wadahadallada siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta dalka, taasoo marar badan lagala kulmo caqabado. Marka la eego taariikhda murugsan ee Soomaaliya, colaadaha iyo kala qaybsanaanta qabaa'ilka, iyo marka lagu daro haykalka dowladnimo daciifka ah, doorashooyinku waxaan u arkaa inay door muhiim ah ka ciyaari karaan xoojinta dowladnimada dimuqraadiga ah iyo horumarinta xasiloonida mustaqbalka fog ee dalka. Waxaan aaminsanahay ama ay la tahay in uu yahay hab Soomaalida kala irdhowday isku keeni kara laguna mideyn karo mustaqbalkooda siyaasadeed. Ugu dambayn, sidee u aragtaa mustaqbalka dowladnimada dimuqraadiga ah ee Soomaaliya? Maxayse tahay kaalinta wasaaradda arrimaha guduhu? Mustaqbalka dowladnimada dimuqraadiga ah waxaan u arkaa inuu yahay dhabaha keliya ee Soomaalida maanta u furan, kaasoo weliba aan marka aan saas leeyahay aan qirsanahay in ay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban. Iyadoo dalku uu sii wado geed socodkiisii dheeraa ee uu kaga soo kabsanayo 10 sano oo dagaallo sokeeye ah iyo burbur, dowladnimada dimuqraadiga ahi waxay laga maarmaan u tahay in la gaaro xasilooni siyaasadeed, midnimo bulsho iyo horumar dhaqaale. Waddada loo marayna waxay ku xiran tahay awoodda Soomaaliya ay u leedahay inay xoojiso hay'adaheeda dowliga ah iyo kobcinta kalsoonida lagu qabi kara in dalka laga abaabulo doorasho toos ah oo qof iyo cod ah. Waxaa kaleetoo jira oo muhiim ah sidoo kaleetana mustaqbalka dowladnimada dimuqraadiga Soomaaliya waxaa iyadana xadidi doona guulaha laga gaaro dhanka amniga iyo dalka in laga dhigo mid xasiloon oo ammaan ah. Iyadoo sida aan la soconno haddii dowladdu ay ku guuleysato dagaalka ay kula jirto kooxaha nabadiidka ah, ay dhici doonto in dalka ay ka hana qaado dowladnimo dimuqraadi ah oo ku saleysan matalaadda shacabka. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ay mas'uul ka tahay korjoogteynta iyo hirgelinta howlo badan oo gundhig iyo aasaas u ah hirgelinta dowladnimada dimuqraadiga ee Soomaaliya. Kuwaas waxaa ka mid ah in wasaaraddu u xil saaran tahay dib u heshiisiin guud oo dalka ka dhacda, gaar ahaan taasoo loo sameeyo gaar ahaan beelaha iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliya oo inta badan iyo goobaha qalalaasuhu ay ka jiraan. Dib u heshiisiintu sidaa la socoto ay lama huraan u tahay in la abuuro dal nabad ah oo midaysan. Dhanka kale, wasaaraddu waxay mas'uul ka tahay in dalka laga hirgeliyo nidaamka federaalka iyo in kor loo qaado xiriirka iyo wadahadallada ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Marka aan isku soo duubo, waxaan dhihi karnaa wasaaraddu waxa ay door weyn ku leedahay diyaarinta iyo gogol u xaaridda doorashooyinka mustaqbalka, iyadoo ka mid ah hay'adaha xukuumadda ee ugu muhiimsan ee laga filayo in ay u diyaariyaan bey'ad munaasib u ah dalka, nidaam dimuqraadi ah uu dalka ka hana qaado. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa maxamed maxamuud, isku duwaha siyaasadda loo dhan yahay ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. Wuxuu nagala qaybgalayay barnaamijka Tubta Nabadda.
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye anigoo ah faa'ise cabdi warsame. fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.